taagannahay waa talada daljirka Dahsoon waxa ku sugan kumanaan shacab dadweynaha oo laga kala keenay 17 degmo ee gobolka Banaadir ujeedka banaanbaxan ayaa ku salaysan inay taageersan yihiin 13 kursi oo markaas qalinka ku duugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo markaas ku yeelanaya golaha baarlamaaniga aqalka sare madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya codsigan hore ayuu ugu jeediyay xarunta golaha baarlamaanka ee shacabka xildhibaanadana markaas ay ka aqbaleen iyadoona kaliya la sugayay saxiixitaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynuhu qalinka ayuu ku duugan shacabkana waxay isugu soo baxeen in madaxweynaha iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya inay kaga mahadceliyaan qaabka markaas loogu dagaalamay matalaada gobolka Banaadir oo ku yeelanayo golaha baarlamaanka aqalka sare qaar kamid ah shacabkii halkan ku soo banaan baxay oo aan la qaadnay muuqaalbahiyaha Dalsan TV ayaan dareenkooda wax ka weydiinay iyagoona sheegay sida tan ay 13 qofood oo gobolka Banaadir siinayana waanu ku faraxsanahay hadii la wadaagayo waa ku faraxsanahay muxuu ahay waana muxuu ahay waxaana way asaaska muxuu ahay gobonnimada farxadayda maanta lama soo koobi karo hadaan ahay degmada Waabari waxa waay maanta waxaan u dacwoon jirnay wanaagaynaba gobolka Banaadir inuu xuquuqdiisa helo maanta waxaan ku mahadinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku guuleystay inuu gobolka Banaadir helo kaalinta uu ku lahaa dawladda soo banaan baxday aad baan u hamaleynaa noo mar walba guuliga gobonnimo farmaajo aad ugu mahadsan yahay ninkaas nin dhacay ma ahan annaga guuleysaan 17 degmo aad dareenkooda wada kulul yahayna maanta meesha ay isugu wada yimaadeen waan u hambalyeynaya hambalyaan leeyahay waxaa la sugayaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo markaas horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho iyo ku xigeenada